arooskii King Jaamac iyo Xuseen Baxsane oo ka dhici lahaa magaalada Dubai dalka isku tanka Imaaraadka Carabta taqaana habeen dambe maalinka Sabtiga habeenka xad soo galayso waxaan rabaa meesha inaad kaga xaqiijiyo confirm boqolkiiba arooska waa baaqday waxaana baajiyay arrin degdeg oo dhacday Xuseen xaaskiisa isbitaal jiifta magaalada Hargeyso taqaana maseer dartiisa waxa way aad wax xanuunsatay taqaana eelkiisa ninkan la hadleen waxa la yiri ma sameey kartaa lahay hooyadiis maanta waa nooshahay waxa way walaalihiis kan wada barnaamijka aan kaga soo hadlay King Jaamac uu tagay wuxuu dhahay arooska waa baaji meel yaraan sameysanaynaa wuxuu yiri mataqaana oo qarsoodi ah waxa lagu xarto ku siina marka King Jaamacna waa diiday waxay tiri aniga dadka dhanaan u sheegay asxaabteyda fanaaniin badan aan casuumay qaarkood hadda waxa way dadkay ku soo jiraan qaarna laba joogto marka waxay dhahday ma baaji kartid maxna arooska dhiganayna asagana wuxuu yiri arintaana jirto xaaskii xanuunsatay xaaska waa taas walaal magaceeda idin sheegi doona King Jaamac waa diiday marka asagana waa ka xanaaqay intaas markay diiday waa soo baxay hadda wuxuu joogaa Xuseen Djibouti joogaa hadda saacada in Allah Djibouti joogaa kiina waxay joogtaa Dubai joogtaa ay ku niijabtay waxa waaye waliyaha inay gadaal saga imaan doonaan laakiin arooskii dhici lahaa todobaadka laba habeen dambe waa burburay aroosna ma dhacayo King Jaamacna waa niijabtay waa xanaaqday asagana waa ka soo tagay walaalayaal gabadhaas u jeedin waxa la Hoodo Ismaaciil ciise waa gabadha ay sheegay hadda waa ka kala tagay waa qabaa shan carruur oo haysa taqaana magaalada waxay joogtaa Hargeyso ee Somaliland taqaana waa gabadh aad loo yaqaano waxa way hadda isbitaal jiifta oo mataqaana waxa way reer dhan waa isku dhaxyaaceen gabadh cidooda iyo asaga cidiisi waxa dad aad u soo yaqaan ahayn gabadhan 2014 ilaa hadda qabaa shan carruur oo haysa martaqaana King Jaamac rub inuu guursado aroos weyn u dhigo fanaanin macnaha la tumayo intaas macnaha u adkayso weysay taqaana ayadana waa isku darsatay xitaa waxa laga yaabaa inay xabtaa dadka qaar dheheen saas isbitaal ku jiifta marka waxa way walaal tacaalooya ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa way u soo duceey inuu ilaahay caafimaad siiyo taqaana waxa way maseerka waxa way in xadinta wax un way waxa laga yaabaa inay naxda dhici karto marka waxa way horta u soo duceeya asageena saasoo u soo baxay Dubai u soo King Jaamac u soo tagay hadda Djibouti jooga waxa way eelkiisa iyo dad kale oo qaraabada meesha hadda asar macnaha la hooyisa tirno tan aniga oo kul dhimanayna hooyada saga dhashay waa yeela waxay tiri reer kale loo muddo doomiye wiilkayga Xuseenow arintan dib u dhig ilaahay ku baneeyay laba isdhex ilaahay ku baneeyay oo hooda anaga sidagan u hadlayno laakiin aroos iyo fanaaniin iyo la baashaalayo hadda waxa waaye qofka bini aadam waa qofkan hooyo dib noogu dhig hooyadiisa dhaxday saasoo dib u dhigay saasoo ku dhahay mataqaana King Jaamac waa xanaaq